nimankan waxay wadaan waa ila meerayso hadda inta soo wadeen yani dhaqanka dowladnimada iyo waxa xataa inaan la dhowrin taliyaashii ciidamada la soo joojiyey xildhibaan maad soo sheegaa waaye war taliya ciidan oo adiga covid-19 maxaa kaa galay covid-19 shabaab miyaa qarax muusitaa maya jidka muu qarxinay aaway dalkii iyo muxuu ahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii gobolladii dhulkii maxaan ku idhahdaa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo cadowga duniyado dhan uu deganaa ee la rabay inaad wax ka qabatiin aaway kuwan maalin kasta guryaha ay ku duminayaan magaalada inta ugu soo galaan ay ku gablaminayaan aaway 4 sana la soo joogaye ciidamada horumarinaa laga sameeyey intaa laga dhacay xaggaa la yeelay amniga waa kari weyne 10 jeeraan aan ku jaalay waxaan hal tuulo oo shabaab laga xoreeyay oo maalintii maxamed cabdullaahi uu imaanaya shabaab haystay oo laga xoreeyay ama markii ugu horreysay shabaab laga xoreeyay ha la soo sheego hal tuulo degmo maaha gobol maaha dowlad goboleed maaha ciidankii inuu xoogaysto qurxonaada maxaa lagu gartaa inay wiilasha Soomaaliyeed garaacaan oo ay dagaalo sokeeye ka shaqeeyaan oo ay dhulka inta siixiyaan qoryaha baadkooda ku garaacaan miyaa horumarka ciidamada ma ina maxuu ahay lagu qaado diyaarada lagu daabulo ee dhulka carrada jirdeeda la geeyo ayagoo dhulka mari karin oo shabaab taaka dhulka u joogo inay tagaan dagaal sokeeye reer isdirasad iyo balaayadooda ay dhex cararaan miyaa horumarka ciidamada laga gaari waxaan leenahay nimankaas walaalaha waxaan u sheegaynaa dadka caqligoodii waa ku cayaarteen waana la idin fahmay waa la idin fahmay markaan ka bacdi caqliga dadka kuma cayaari kartaan waxaasi waa dulqaadayna ka ahayd ee dadka caqli darro kama ahayn ee dulqaad ay muujinayeen iyo samir iyo adkaysi iyo ama rajo dowladnimadii ay maanta muxuu ahay tallaabo qaada ay ka ahayd caqliga dadkaad ku cayaarteen curfiga dowladnimada iyo maxaan ku idhahday nidaamka ku cayaarteen wanaagii Soomaaliya iyo socoshadii Soomaaliya ku cayaarteen ha u sii naqanina arrinta banaanbaxa waa laga dhawaajiyey waa dastuuri dadkaan xaq u leeyahay haddaadan codkaaga ku dhihi karin kana waa diidanahay kana waa ogolahay maxaa ku dhehe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarkaa ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaan la joogno ku dhex jirna ka tirsan aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaaq iyo dagaal iyo dhiig Soomaaliyeed si sabab uu u daata ma rabno jidkaasaan maraynaa xaq dastuuri ah waxaa la idinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay ilaalisaan cadowga la sheegaya ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan jidadka maritaankooda u fududaysaan laakiin maanta inaa idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanku waa dembi adiga kuu gaaro ood gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh dadku waa mas-uuliyiin waa waxgarad waa maxaan ku idhahdaa indheer garad dhammaantood waa kuwa in yar ayagoo ah meesha isugu yimid oo salka u wada xiran yahay oo gacmaha muxuu ahaay wada marsaday muxuu ahaay sanitizerkii qof walba samxirkiisu soo qaadanaya intii aan wadanina maalintaas meeshaa lagu siinayaa intii isu socdaan jidka iyo gacmo dhaqu waa yaallaa meesha iyo sanitizerska dadku waa imaanayaan ilaahay idinkiis maalinta jimcaha meesha waa la isugu imaana dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna waa imaanayaan kuwa gobollada jira waa og yihiin waa la wada sugayaa maalintaas waa beriya ka dhiman waa tegeynaa haddii alla yidhaahdo waa tegeynaa ma baaqanayno ma hakanayno annagaa idinka horeyno meesha joogno ku horumarayno waa tegeynaa haddii alla yidhaahdo warkooda dheg jala qof siinaysa malaha run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran dadka inay ixtiraamaan laguma baran
dowladnimada inay dhowraan laguma baran warkoodana qof yeelaysa male la dhagaysan maayo la dhagaysan maayo ha xishoodaan sharciga ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday ma jirto waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed hooyooyinka culamaa udiinka bulshada rayidka dadkoo dhan oo magaalada muqdisho gobolka banaadir ku nool barxaddii daljirka daasoonaa noo ballana maalinta sideediyada dhammaantiin waxaan leenahay ka soko maalintaas ka hor qofna ilaahay ma dilo taariikhdaas samaysmaysa qof walba soo goobjoog uga ahaado oo u yidhaahdo maalintii daljirka waa tii aan joogay 19 bishii February waataan daljirka taagnaay qof walba inuu yiraahdo rabaa oo taariikhda meel ka gala diyaaliyo guuleysta waxaan noo ballana meeshaas qowlihiinii gaargaarka ay haysateen sidiina u haysta abaabulka sidiisa u wada maxaan ku yiraahdaa hebela xagga ka hadlay iyo hebelooba inta ka hadlay niman la garanayna meesha ka hadlay iyo warkooda kuma jiro wax qalad oo sameeyo hayna malaha xuquuqdeena iyo waajibkeena iyo waxaan xaq u leeyahay ku taaganahay ka xishoomayno kana cabsamayno iska ilaaliya dacaayadaha raqiiska ay wada fiiri dadkan maalin walba qof inuu yimaado oo dadka ku aamusiyo kelmad dadka lagu aamusina in la sameeyo waa dhaqankii diktatoriyadii kacaanka laga keenay waay kacaan diid iyo afmiishaar iyo dib u socod iyo qaran dumis iyo maxaan walax jinnoon la garanayna dadka la dhihi jiray si aanay ra'yigooda u cabirin oo aanay u hadlin oo markay hadli tagaan loo yiraahdo adiga kacaan diidaa tahay dib u socdaa tahay maxaan ku yiraahdaa afmiishaar tahay loo yiraahdo shib u yiraahdo qofka dhaqankii waa soo minguurina dagaaladiisa ka mugay socdaan waa maanakoobiya iyo waa manifesto iyo waa sulux iyo waxaan kelmadda sulux xataa kelmad wanaagsan xataa si waxaa loo yeelo waa magac xumaa loo yeelay waa noo maalintaas haddii alla yidhaha waana wada joognaa annagaana idinkaga horreyna meesha haddii alla yidhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh noolaada adinka